madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye mas'uuliyiinta iyo madaxda kale halkan ku sugan madaxda gobolka iyo degmada Burco shacbiga rag iyo dumar leh ee quruxda badan ee reer Burco xisbiga kulmiye musharaxiintiisa iyo taageerayaashiisa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaynu isugu soo baxnay oo aynu fagaaraha u joognaa sidii horeba loo yiri waa laba munaasabadood Burco ma maqlaysaa laba munaasabadood baynu u joognaa munaasabada koowaad ee aynu isugu nimi waxa weeye murashaxiinta xisbiga kulmiye ee u taagan doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ee aynu u soo baxnay haddaynu xisbiga kulmiye nahay inaynu codkooda ku taageerno ayaynu doonaynaa inaynu cududeenna muujino munaasabada labaadna waa munaasabad ay Burco magaalooyinka kala dheer tahay waa munaasabad weyn waa munaasabad Burco lagu ixtiraamo waa 27 May waa maalintii aynu faqash Burco maalintii laga diray waa maalintii xabadii ugu horeysay halkan ka dhacday ee faqash lagaga xoreynayay dalka ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadanigaas SNM ay yimaadeen magaalada Burco intii maalinta dagaalka ku dhimatay iyo Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo aamin Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo intii shahiiday Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inteena nool iyo intii ka dambaysay Ilaahay uga daba naxariisto